gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta dhagax dhigay xarunta degmada Cabdicasiis ee magaalada Muqdisho taasi oo dib u dhis balaaran lagu sameyn doona. dhagax dhigan ayaa waxaa goobjoog ka ah xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, qasamaha gudoomiyaha degmada Cabdicasiis, qaar ka mid ah agaasimayaasha maamulka gobolka Banaadir iyo shacabka degmada Cabdicasiis. gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho ayaa sheegay in dib u dhiska balaaran lagu sameynayo xarunta degmada Cabdicasiis qayb ay ka tahay mashaariicda dib u dhis ee maamulka gobolka Banaadir oo ka fulinayo xarumaha danta guud ee loogu adeegi doono bulshada caasimadda, asiguna kula dardaarmay inay shacabka ilaashadaan goobaha danta guud ee dib u dhiska lagu sameynayo. reer Cabdicasiis fursad iyo nasiib ay u heleen inaan u soo kordhino mashruuc kale oo dib u dhis ah. mashruucaas oo ah dib u dhiska xarunta degmada Cabdicasiis. dib u dhiska degmada waxa uu qayb ka yahay dib u dhisyada ballaaran ee ka socda maamulka gobolka Banaadir degmooyinka gobolka Banaadir aan iraahdo uuna wado maamulka gobolka Banaadir. mudanayaal iyo marwooyin, Cabdicasiis degmada Cabdicasiis ma aha mashruuc ugu horeeyay oo horumarineed oo loo fuliyay sida aad ogtihiin. hase yeeshee waxaa la idinka rabaa maalintii dhagax dhiga waddadan aan idin sheegay inaad ku dadaashiin nadaafadda waddada. meel kasta oo dib loo hagaajiyo ama la dhiso inaan idin xaaqno idinkuguma dari karno. marka mas-uuliyiinta degmada iyo bulshada degmada oo iskaashaday waxaa laga rabaa inay muujiyaan bilicda iyo nadaafadda degmada. ma aha reer Cabdicasiis kaliya ee waa degmooyinka gobolka Banaadir oo dhan. sidaas ayaan ugu sheegnaa. haddii meeshii shalay lacagaha faraha badan oo malaayiinta dollar la geliyey muddo yar kadib ay noqoto meel qashin qub ah, ay noqoto meel ciidda iyo qashinku ay iska bugaaran yihiin ama biyo wasakh ay yaaliin, taasi ma aha midna dhiiri gelinaysa, bal way na niyad jebinaysaa. marka aan ku ballanno marka inaan annaguna suuro gelinno meel kasta oo u baahan dib u dhis, oo u baahan dayactir, oo u baahan bilic muujin iyo nadaafad u baahan inaan idinka caawinno wixii adinka karaankiina ka baxsan. hore ayuu maamulka gobolka Banaadir dib u dhisyo balaaran ku sameeyay dhowr xarumood oo ka tirsan 17 degmo ee ka kooban tahay gobolka Banaadir, iyaduna qorshaha maamulka uu yahay sidii loo tayin lahaa xarumaha loogu adeego shacabka si bulshada u helaan adeegyadii ay u baahnaayeen. Yusni Maxamed Axmed, Hirshabelle TV, Jowhar.